Isticmaalka tiknoolajiyada markaad weynaato waxay yarayn kartaa khatarta asaasaqa. Iyadoo ay jirto werwerdhab ah oo ah in tiknoolajiyada ay baabiinayso xirfadaheena garashada, maxaad u baranaysaa xisaabta ama xaqiiqooyinka marka aad had iyo jeer haysato xisaabiyaha iyo Google? Daraasad cusub ayaa soo jeedinaysa in ku noolaanshaha tiknoolajiyada nolosha dambe ay yarayn karto khatarta waalida. Saaxiib sabskraib hadaad ii saarto waan kuu mahad celinaa. Mahadsanid. Cilmi baarayaasha Texas waxay falanqeeyeen xogta 7 daraasadood oo hore oo daboolaya in ka badan 4 oo qof oo dadoodu ka weyn tahay 5 si ay u eegaan xiriirka ka dhexeeya caadooyinka tiknoolajiyada dijitaalka ah iyo xaaladaha waalida. Maalin kasta waad rogi kartaa wararka waxaadna arki doontaa dad ka hadlaya sida tiknoolajiyada ay noo waxyeelaynayaan, ayuu yiri Michael Sprullin oo ku takhasusay cilmi nafsiga iyo neerfayaasha oo ka tirsan jaamacadda Baylor. Dadku waxay inta badan isticmaalaan ereyada maskaxda iyo maskaxda qudhunka, hadda waalida dijitaalka ah waa weedh soo ifbaxaysa. Cilmi baarayaal ahaan, waxaan rabnay inaan ogaano in tani run tahay iyo in kale. Shaxda waxbarashada. Cilmi baarayaashu waxay soo ururiyeen xogta daraasado badan, kuwaas oo dhammaantood qaatay habab kala duwan. Falanqaynta tirakoobka ayaa muujisay in isticmaalka tiknoolajiyada ay la xiriirto hoos u dhaca 5% ee khatarta garashada. Intaa waxaa dheer, isticmaalayaasha tiknoolajiyada waxay muujiyeen inta u dhaxaysa 2.6 iyo 3.4% heerarka hoos u dhaca garashada waqti kadib. Waa muhiim in la ogaado in tani aysan ahayn nooca cilmi baarista ee caddayn kara sababta tooska ah iyo saamaynta. Daraasad kasta waxay isticmaashay habab kala duwan, waxayna ku qiyaastay isticmaalka tiknoolajiyada si ka duwan. Daraasaadka qaar ayaa eegay isticmaalka casriga ah, tusaale ahaan, halka qaar kalena ay cabbirayeen isticmaalka baraha bulshada. Si kastaba ha ahaatee, dhimista khatarta ayaa weli la hayaa kadib hagaajinta arrimo ay ka mid yihiin shaqada, waxbarashada, iyo heerka dhaqaalaha bulshada. Waxay u muuqataa inuu jiro xiriir halkan, kaas oo mudan in la baaro cilmi baaris dheeraad ah. Xigtayadu waxay soo jeedinaysaa dhiirigelinta dadka waaweyn ee ku hawlan farsamada, gaar ahaan qaab ka caawinaya loolan, isku xidhka, iyo magdhowga dhibaatooyinka garashada, waxay noqon kartaa hab awood leh oo kor loogu qaado caafimaadka garashada, ayuu yidhi cilmi nafsiga Jared Benge oo ka tirsan jaamacadda Texas ee Austin. Isticmaalka tiknoolajiyada waxay kaa caawin kartaa inaad ka ilaaliso hoos u dhaca garashada iyo waalida dhowr siyaabood oo kala duwan, cilmi baarayaashu waxay soo jeedinayaan. Waxaa laga yaabaa inay ku caawiso kicinta maskaxda, tusaale ahaan, gaar ahaan marka ay timaado barashada sida loo isticmaalo aaladaha iyo abka cusub. Tiknoolajiyadu waxay sidoo kale naga ilaalin kartaa inaan si wanaagsan ugu xirnaano warbaahinta bulshada iyo wicitaanada fiidiyowga. Waxaan horeyba u ognahay in kalinimada ay la xiriirto fursad sare oo ah inuu ku dhaco waalida, iyada oo joogtaynta xiriirka bulsheed ay sii wadi karto maskaxda inay sii soroto. Waxa kale oo jirta fikradda tiknoolajiyadu u dhaqmo sidii iskuduubni oo ku wareegsan hoos u dhaca awoodaha dhimirka, iyo in dadka dada ah lagu sii madax bannaanaado muddo dheer, apps ka caawinaya xasuusinta daawooyinka iyo ballamaha caafimaadka, tusaale ahaan. Waa sawirka kan oo ay ku jiraan arrimo badan, laakiin marka la eego baaxadda leh ee daraasadan cusub iyo cabbirka muunada weyn, waxa ay noqon kartaa mid mudan in aan joogtayno xiriirka aan la leenahay tiknoolajiyada marka aan sii weynayno, iyo in aan ka caawinno kuwa kale inay sidaas oo kale sameeyaan. Haddii aad leedahay waalid ama awoowe oo kaliya ka fogaanaya tiknoolajiyada, waxaa laga yaabaa inaad dib u eegto taas, ayuu yidhi Sprullin. Miyay baran karaan isticmaalka sawirada, fariimaha, ama jadwalka taariikhda ee casriga ama tabletka? Ku bilow fudud oo aad u dulqaado inta ay wax baranayaan.